اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يويدي سرينا مجلس كينا ننكدغو مجلس خير وبركة. إلهي سبحانه وتعالى ذنبنا كدافو عبتنا نوكو أسطره. إلهي سبحانه وتعالى كوكو فرحنا مجلس كان الله ينقدغو ولا ليال iyadoo bishan aynu ku jirno sideedaba ay tahay bil baraka badan, dadkuna ay u jajaban yihiin khayrka dhagaysigiisa oo masaajidu ay wada camiran yihiin, maadaama oo shayaadiintii madaxa adkaa la xidhxidhay. waxaynu aragnaa in dadku aad iyo aad ay ugu dhaganugul yihiin inay dhagaystaan khayraadka. إلهي سبحانه وتعالى أجري حسنات كسيو ولا لها مساجدك يسوق مقابيي محاضرات كان وقلت رجلي إن خيارة مسجدك يكفى يديستان بشني وبالعجب ذنوي. وحال هذا شهر رمضان، وحال هذا شهر الصبر، وحال هذا شهر الدعاء، شهر الرحمة، شهر العطاء، شهر المغفرة. وبالمقعية بدن وي قيمها أيلاد هاي درادد أيام مقعيدد وأي كبتين. وحين بلستوير دينا إن شاء الله تعالى إن أي نكور رنو دعاء إيا بشهر رمضان مركا كوباد وإن نسحسوسينو بشان أي نكجر نقيمة بدنان تيدا. وبالله سبحانه وتعالى أدومه سائم بدن ونارتا كحريو هبين كستاو كمدا هبين نظر بشهر رمضان. إلهي سبحانه وتعالى ضدبو نارتا كحريا وهبين كستا وهبين نظر رمضان. إلهي سبحانه وتعالى كوي هبين كيوغو الريب وحريي الله ينقدرو بشن. إلهي سبحانه وتعالى وحا وفرع دونيسا أبواب فربضان أديتها دم بالداف أديتها نحريس. وبالله تلقلي إن لقى الشدال قاتو أو لقى الصحي قاتو ومواصلت إلهي الدونيسا وكوك الله ديستو قفك السوق قادنا قف أيام بدل ويهي وإلهي خير فربضان لدوري. وحين وقنا هاي ومركز تنا إنس حسوسينا ضد فربضان ولا لهن آها oo jeclaa inay bisha soo gaadhaan inaanay soo gaadhin oo ajashii ay markaa kala teeday iyaga iyo bisha ramadaan. qaar fara badan ay xanuunsanayaanoo aanay soomi karayn. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadoo dhan iska leh ina soo gaadhsiiyey oo maanta ina karsiiyey inaynu bishan soono. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inaynu ramadaano fara badan aynu gaadhno aynu ka faa'iidaysano cumrigana allah inoo barakeeyo. walaalayaal, ducadu iyadoo sideedaba arrinteedu ay u weyn tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka inoogu tilmaamay, sideedaba ducadu waa cibaado gooni u taagan weeyaan. addoonka laga rabo inuu ilaahay ku cibaadaysto subxaanahu watacaala. waa waxa keliya ee dembi dhaafka lagu helo, naxariista lagu helo, cataaga lagu helo, arsaaqda lagu helo, dhibaatooyinka ilaahay kaaga badbaadiyo. qofku markuu yaa allah yidhaahdo uu gacmaha kor ugu taagay ilaahay subxaanahu watacaala, ilaahay waa aqbalaa waanu ajiibaa haddaanu addoonkaasi la iman wixii ducada loogu diidayay. qur-aanka aynu akhriyayno ku cibaadaysanayno hadda ee kutubtan aynu furannay aynu ilaahay ugu dhowaanayna subxaanahu watacaala akhrintiisa ayaa waxaa inooga buuxa qisooyin fara badan oo ku saabsan dad ilaahay subxaanahu watacaala duco uu ku badbaadiyey. waxaa ka mida nebi yuunus baa ka mida calayhi salaam. markii uu markaa kalluunka gudaha u galay ee badda lagu tuuray isagoo mugdiyo saddexa ku sugan
ayuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala. mugdiyadaasi badda iyo kalluunka iyo habeenkii intaasaa isugu biiray. markaasuu halkaa rabbigii ka baryay subxaanahu wa tacaala, fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin. mugdiyadaa dhexdooda ayuu ka dhawaaqay, wuxuuna yidhi macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane rabbiyow, ilaahow dhibaatadan iga fayd buu lahaa. ilaahay wuxuu ihi fastajabnaa lahu, waanu ka aqbalnay buu ilahay yihi subxaanahu wa tacaala. nebi yuunus wixii ka soo saaray nimirinka calooshiisa waxaa ka soo saaray ducaday ahayd, baryadaasay ahayd. nebi zakariya calayhi salaam awlaad la-aan ayuu ku weynaaday. waa innaga aynu ku akrinay suuratu aali cimraan markuu arkay maryamo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqay. kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa. mar alla mar kasta oo uu zakariya u galo maryamo meeshay ku cibaadaysanaysay wuxuu agteeda ka helayay arsaaq, iyadoo cunaysa midho aan meeshaba oolin. halkaasuu rabbigii isaguna baryay. hunaalika dacaa zakariya rabbah. halkaasi ayaa rabbigii uu ku baryay isaga oo weydiisanaya rabbigii ubad wanaagsan. rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba innaka samiicu ducaa. wuxuu yidhi rabbiyow waxaad ii hibaysaa agtaada, waxaad iga siisaa carruur wanaagsan buu yidhi. ilaahay carruur wanaagsan ayuu weydiistay. wuxuu ilaahay ku arsaaqay, intuu ducadii ka aqbalay wuxuu ku arsaaqay yaxya oo ilaahay nebi uga dhigay subxaanahu wa tacaala. nebi ibraahim calayhi salaam rabbigii buu baryey oo wuxuu yidhi rabbi hablii min alsaalixiin. ilaahuw dadka wanaagsan ii hibee, carruur wanaagsan oo fiican allow isii buu yidhi. ilaahay waa ka aqbalay subxaanahu wa tacaala. wuxuu ilaahay yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba wakullan jacalnaa nabiya. waxaanu u hibaynay oo aanu siinay isxaaq iyo markaa yacquub baanu siinay, isxaaq iyo ismaaciil baanu siinay baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala. isxaaq iyo yacquubna ilaahay waa siiyey, oo sidii ay suuratu huud qisada nebi ibraahim marka laga warramayo waxaa loogu bushaareeyey nebi isxaaq oo dhali doona nebi yacquub calayhim assalaam. ducada dhibaato oo dhan baa lagaga baxaa, khayr oo dhan baa lagu helaa. ramadaanna waa bisha ugu mudan ee haddaad inuu ducaysan lahayd, bisha ugu mudan waa bisha aad ku jirtay ramadaan weeye. walaalayaal, ducadu asal ahaan marka la macnaynayo waxa weeye an yatluba daaci maa yanfacuhu. waa inuu qofku ku ducaysto wixii anfacaya adduunkiisa iyo aakhiradiisaba. xaqiiqada ducaduna waxa weeye in aad bandhigto baahidaada, inaad tahay qof faqiir oo ilaahay u baahan subxaanahu wa tacaala. ducadu waxay astaan iyo daliil u tahay inaad tahay addoon dhaba. markaad ducaysanayso waxaad ilaahay ogeysiinaysaa inaad u baahan tahay, oo aanad laxda waaxida iyo daqiiqa waaxida aanad rabbigaa ka kaaftoomi karin. sidaa daraaddeed baa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ilaahay inuu yahay kariim, oo uu ilaahay ka xishooda addoonkiisa inuu soo celiyo markuu gacmaha ugu taago, gacmihii oo madhan oo sifrana inuu ilaahay ku soo celiyo waa ka xishoodaa. marba haddaad tiraahdo yaa rabbi, ilaahay waa ka aqbalaya subxaanahu wa tacaala. adiga unbaa lagaa rabaa ducadii iyo qaabkaad rabbigaa u baryaysay inaad barato unbaa lagaa rabaa. ducadu walaalayaal ilaahay baa ina faray, oo markaad ducaysanaysa amar ilaahay ayaad fulinaysaa. allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum. waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum. rabbigiin wuxuu yidhi ibarya waan idinka aqbalayaaye. marka waa amar, ibarya buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. markaad tiraahdo rabbiyow anaa ku baryaya ood gacmaha kor u taagto, amarkii ilaahay baad qaadatay. waxaana shaki la-aana qofka amarka ilaahay qaata in ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamaynayo. markaad rabbigaa barido wuxuu ilaahay kugu karaamaynayaa inuu kaa aqbalo ducadaasi, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga farxiyo waxaad baratay, waxaad ilaahay bariday inuu ku siiyo. nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada.
دعاء يدا بعبادة هذه عبادة لنا فري عبادتنا وحوي التذلل والخضوع وإسدلين هي إسدلدق أدقوا إلهي وخشوع إسكد الليا هي عبادة لنا هذا دعاء نوى عبادة رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أدونكم مركو لي يا الله وقعمهم كنوا تاغيو أدون نمدي سيبوا عدين وهذا من فضل الدعاء وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء إلهي سبحانه وتعالى شيء كرامة بدل مجره دعاء إيا بريضة قفه إلهي بريضة سبحانه وتعالى دعاء وحا أي نقطة السبب إنه إلهي كو عرور مركا دعاء بريصو ربي كو عرور مايو والنبي صلى الله عليه وسلم حيري من لم يسأل الله يغضب عليه قفك إلهي وحبه ويديسن وايا وإلهي بري وايا إلهي وهو عرورا إذن هداد إلهي بريضا الله كو عرور مايو معناها هداد إلهي بريضا إلهي كو معرون أيو هداد إلهي بري ويدنا إلهي وكو عرون يا سبحانه وتعالى وحال لقبت بعد مركا دعاء وامحي عرض إلهي ما لقبت بعد دعاء ولا ليال وحي دليل أتهي إنا تهي أدون إلهي تلسارنيا دعاء وحي دليل أتهي إنا ربك تلسارنيسا والربك رجينيسا سبحانه وتعالى وحي دعاء أي وصيلة أتهي نفتو إنا يتهي نف ربك كحدا سبحانه وتعالى وآمن سن إلها أي رميسان تهي هدي بريضو إن بريضو وكأقبل يوم رمضان قف كستا أو صوما وحليه الدعاء مالين كستا لغا أقبله وحلقا وقتقا عاد أفريسو وحليه الدعاء لغا أقبله هدي أد إلهي سيدي لوبهنا أدو بريد سبحانه وتعالى وحلو باين ولا ليان إنا إن الدعاء مركا بدينه هدي أدو فرصتان سورة البقرة إلهي سبحانه وتعالى مركو كور رمي آيات كالصوم كمركو كورمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى لقى قارسين أيوه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آيات كحكت وحوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نبي محمد صلى الله عليه وسلم أضامها يوهدي كاويديان فإني قريب أنا جوان دوهي أجيب دعوة الداعي إذا دعان متك يبري يبري ديسا وأن أقبل يا هدي بريان الله سبحانه وتعالى هداد إلهي بريضه وحا إلهي كوغب لنقالين وكا أقبل يا سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي هيا أقبل بإلهي سبحانه وتعالى وليؤمنوا بي هنا الرميان لعلهم يرشدون آيات داسي كدبنا صام كيبا هدنا لغو النقضي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وحي علماء إلى هذين آيات الدعاء دحدق الله دحدق أي آيات كصوم ككوى رميا وحا أي نتصريسا أهمية الدعاء يبريض أي لا ضهي رمضان دحديدا تضبط عشو انتبه دعاء سي آد سميسا أو ولبا انتبه دعاء آد كو خضوع ضي أو دعاء آد اسدرن سيسي أو قلبك وحاد كو هدليس آد كسو سارتي هذا مركين الدعاء سنينو إلهي سبحانه وتعالى وإن أقبل موياني دعاء قاب كينو دعاء سنينو وإن استقانا وحين دعاء سنا إنه قوس كدو وحال الربا قفكو إنه دعاء يستوى إلهي كوكالصون وإلهي يقين سن إلهي كأقبل سبحانه وتعالى آداب الدعاء لا يضحي حق الضبائن وكشيرينا ولا لي الدعاء وعباده أدونك هديه لي ماده وحاو كدغيهي إن إلهي سبحانه وتعالى أعابدي إلهي أمبا سبحانه وتعالى لبريا عدك لا لبريا مجرته أنبياء إلهي سبحانه وتعالى
iyagoo acmaashii khayrka ahaa qabanaya oo cibaadadii ku jira ayaa haddana rabbigood ay baryayeen. nebi ibraahim calayhi salaam isagoo kacbadii dhisaya isaga iyo inankiisii ismaaciil ayaa haddana ilaahay nooga warramay inuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala. waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciilu rabbana taqabbal mina innaka anta asamiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بل دعاء رفر صدى النبي إسماعيل يا نبي إبراهيم يكون دعايستين كعبدي بين دسيا يجو مركا قواعدي كرو قاضي يو دسيا أيا وحي إليه ربنا تقبل منا إله نجا أقبل إله ربك يو نجا أقبل وايو دعاء هدانو ألا كأقبلين وأذكر باتونيسا مركا الله سبحانه وتعالى إنه إنك أقبل الدعوين كان أين ويدي سرنا اللهم تقبل منا دعاءنا إله الدعاء إذا نجا أقبل مركا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل وحيلها يا ربنا تقبل منا إله نجا أقبل عمل كان أنا ودنا الله نجا أقبل خير كان أنا كجرنا الله نجا أقبل dhismaha beydkaaga allow naga aqbal aanu dhisayno innaka samiicu ducaa rabbiyo waxaad adigu tahay midka baryada aqbalaya ayaa tahay. ilaahay baa baryada aqbala subxaanahu wa tacaala. cid kale haddaad u yeedhato wax kaa aqbali karaysaa ma jirto. rabbigaa keliya ayaa wax kaa aqbalaya. rabbigaa keliya ku aqbalaya oo ku ajiibaya. isagaa xaaladaada hoose iyo xaaladaada markaasi muuqata intaba ilaahay baa kuu garanaya subxaanahu wa tacaala. cid kaloo garanaysaa ma jirto. marka waa inaad tiraahdaa rabbanaa taqabbal mina innaka anta samiicu alcaliim. hadda qur-aan baynu akrinaa, salaad baynu tukannaa, waynu sadaqaysanaa, laakiin inaynu ka dabageyno baryo oynu nidhaahno ilaahu iga aqbal way yar tahay. qur-aankii buu akhriyaa, qofku isku laabaya asalaamu calaykum u soconaya. inuu yidhaahday ahayd ilaahu iga aqbal. qur-aan baan akhriyey, ilaahu hadalkaagii baan akhriyey, ilaahu waan tukaday, ilaahu waan sadaqaystay, ilaahu iga aqbal. way yar tahay cidda taa ku baraarugto walaalayaal. waxay lahaayeen rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka, ilaahow laba muslimoo ku hoggaansan adiga ilaahu naga dhig. rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan lak. tafiirtayadana ilaahu waxaad ka dhigtaa ummad adiga kuu hoggaansan oo muslimada ilaahow ka dhig. watub calaynaa ilaahow naga aqbal, watub calaynaa ilaahow naga towbad aqbal, ilaahow nagu soo noqo. taaba allahu calayhim, ilaahay baa ku soo noqday, macnaha ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka aqbalay oo dunuubtoodii ka dhaafi weeye. watub calaynaa ilaahow naga towbad aqbal, innaka anta atawaabu araxiim. rabbiyow waxaad adigu tahay ilaaha towbad aqbalidda badan ee naxariista badan baa tahay. cidda baryadaasi baryaysa ku ducaysanaysa waa ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidaasoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam ducooyinka faraha badan ee laynooga soo guuriyey waad garanaysaa, ee intuba inoo tilmaamaysa sida uu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu u badin jiray ducada. waxa uu rasuulku ku yidhi cali bni abi aalib, waxaad tidhaahdaa allaahuma innii as'aluka alhuda waasadaad. ilaahow waxaan ku weydiisanayaa hanuun iyo toosnaan. sidaa dhabuu ku yidhi. wuxuu rasuulku ku ducaysan jiray allaahuma innii as'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghinaa. ilaahow waxaan ku weydiisanayaa hanuun, alla ka cabsi, dhowrsooni iyo hodantinimo ayaan ku weydiisanayaa. waa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa haddaba loo baahan yahay walaalayaal markaynu ducaysanayno in aynu aada u ilaalino aadaabteeda. waxaa kow ka ah qofku markuu ducaysanayo oo aadaabta ugu muhiimsan ah inuu qofku qiblada qaabilo. waxaa markaa loo baahan yahay in aad shucuur aada isdareensiiso ducada
oo adigoo maqan aana ducaysan sida maanta dadku u badan yihiin markaad ducaysanayso waa inaad ugu talagashaa ducadaadaasi in lagaa aqbalo maxaa yeelay qaabilidda aad qiblada qaabilayso iyo gacmaha aad kor ugu qaadayso iyo ammaanta ilaahay aad ku furfuranayso ducadaada iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam intuba waxay astaan iyo sunnad iyo calaamad u noqonayaan in ducadaadaasi insha allahu ay noqon doonto mid maqbuula ay noqon doonto qiblada qaabil gacmaha kor u taag ilaahay ammaan nebiga ku salli calayhi salaatu wasalaam kadibna waxaad weydiisataa ilaahay khayrka adduunyada iyo khayrka aakhiro weydiiso markaad khayrka adduunyo iyo khayr aakhiro ilaahay weydiisanaysana waa in qalbigaaga aad ku haysaa in laga aqbalayo oo laabudda an tadcu allaha wa anta muuqin waa inaad ilaahay baridaa adigoo yaqiinsan in laga aqbalayo baryadaasi wa anta muuqinu bilijaaba laakiin haddaad tiraa qushiye kollayba waan baryi jira hadda waxba laygama aqbali jirin haddaad tiraahdo ducadaadaasi socon mayso idan qiblada qaabili gacmahana kor baad u taagi ilaahayna waad ammaani alxamdu lilaahi althanaau lilah alsalaatu wassalaamu calaa rasuuli illah markaasaad baryadaadii badinaysaa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتي وخاتمتي في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل مني صلاتي اللهم تقبل مني قراءة القرآن وهكذا أدقى مركز تبعا كتغي دعويك مأثور كنبيك كسوغا صلى الله عليه وسلم انت هورتا كبلابيا مركز دمنا دعيسانا يوحي إلهي يدوي دي سليسو هدانت كد عيسان قطيعة الرحم قراب قويس نمو إيا الذنب هدانت كد عيسان يوحان سورتا قليل انت كالوردن إلهي وكا أقبل يا سبحانه وتعالى كنا دذال إن الحلاشة عنطو وحلاشة هدي أدقورته دعاء هذا مستجاب بين قريسا وإن عنتظر عنيسو أريكتا وإن دركات حينانتهي أي يين دركا سوانا أكسنو وحوانا أكسن أدكو قرطي وإن عنتظر أي وانا أكسنتهي أو عنتو مركا حلالة أو طيبة وانا أكسن أي تهي انت مركا لتي مادو وحادكو بشاريستا إن لغا أقبل دعاء waxyaabaha ugu muhiimsan ku ducaysanina waxa kamid ah walaalayaal in ilaahay cibaadada inoo fudaydiyo ilaahayna inagu caawiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa uu ku yiri Muaad ibn Jabal oo aad u jeclaa isagoo u dhaaranaya wallahi inni la uhibbuka ku yiri Muaad waan ku jecelahay salaad kasta oo tukanaysa ha ka tagi buu yiri ila tiraahdo allahumma a'inni على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله واحد يقولك عاوسا إله واحد يقول عاوسا على ذكرك حسيتان كاغا إنا أكو حصو إنا الإله حسنوا أين أكو أدون سنة إلهي بأي نقو أدون صدي إلهي بأي ولي بأي نقد البي إنا إنو إنبضا إلهي حسنوا وعبادة كلية اللي نقول يري إنبضا سمعية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا انتهى كثيرا وعبادة منافقين تلا شيغي إني وحي ركسميان ولا يذكرون الله إلا قليلا قفك مؤمنك إن بدنبو إلهي حسان حسيتانك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كل هذا وذكر إلهي سبحانه وتعالى مركا هدانو هذا الله كوغو كالمين ما لقى يا بين إلهي حسطو ما يا والله سيدا درادد وإن أدوي ديستا إن إلهي كوغو كالمين سبحانه وتعالى محال لا يضحي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله وحاد يقول كالميسا حسكاغا
إن أنكو حصو وشكرك إن أنكو مهد نقول نعمويك هذا قل ليس نعمويك هذا قل ليس تين أنكاغا مهد علينا إله ويقول كالمي إمسا النعمة إله قل ليس سبحانه وتعالى عافمات بان تاهيستا أدكو صورتي ونعمة ويويان إلهي نادوغا مهد عليسا لغا ربا إسلامي وألا كسية ونعمة وين ونعمة وين إن هذا نادوغا مهد عليسا لغا ربا أدون قرآن كأخريو الله كاندقي أو قرآن كيمو كبري وإن إلهي وقم هذا سبحانه وتعالى صلاته ما تكريسا أو صفك أدكو تكريسا وإن إلهي وقم هذا سبحانه وتعالى waxaad isku dayaysaa in salaad kastiba aanay masaajidka kugu dhaafin ilaahayna uu ku karsiinaya ilaahay waa inaad uga mahad celisaa subxaanahu wa tacaala marka allahuma a'inni ala dhikrika wa shukrika wax weyn oo loo baahan yahay qofku inuu ku dadaalo wa husni cibaadatika guud ahaan cibaado wanaagsan inaan rabbi oo kuula imaado iigu gargaar imika inaga cibaadadeena aynu ilaahay u cibaadaysana ma tahay mid ay salaadeenu ma tahay boqolkiiba boqol sidii ilaahay naga rabay kuwa tukanaya quraan akhrinteenu ma tahay boqolkiiba boqol kuwa u akhriyay sidii ilaahay ka rabay subxaanahu wa tacaala sadaqadeenu ma tahay boqolkiiba boqol kuwa u bixiyay sidii alla rabay subxaanahu wa tacaala maye dhammaanteen waad garanaynayo waxba inaga wada dhiman salaadii kuma khushuucno qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun way naga maqantaho khushuucdii way nagu yar tahay khushuucdana waxaa kow ka ah inuu qofku dhaqdhaqaaqa joojiyo joojiyaa kow ka ah qalbiga oo ilaahay keligii ku qabta subxaanahu wa tacaala xubnihiisuna ay degaan mar alla markuu yidhaahdo allahu akbar ayaa la rabaa in dhaqdhaqaaqba uu joojiyo xubnihii caadiga ahaa iyo dhaqdhaqaaqii qalbiga ku mashquulkii adduunyada inuu joojiyo sidaa ma u tukanaa nebigu markuu salaada gala sala allahu calayh wasalam waxaa laabtiisa laga maqli jiray guux sida dheriga guuxiisoo kale ah maxaa ku dhacay rasuulka waa uu khushuucayay sala allahu calayh wasalam haddaynu maanta si dhaba u khushuuci lahay salaaduba inaguma cuslaateen qur-aanka laynagu tujinayo ee taraawiixda aynu ku tukanayno kama baynaan cabaneen waa haddii aynu khushuuc salaada ku tukanayno maadaama haddaba cibaadada noocaa iska tahay oo in salaadii iska galno bilaa khushuuc oo qur-aankii aan iska dudubinayno aan akhriyayno uun iyadoo oo waxaa qur-aanku ka warramaya aynaan fahmayn oo sadaqadii aynu markaan bixino hadal aan ka dabageynayno waa anigii imisaad bixinayey imisaad iga qaadayseen ninkaasi wuxuu ku duulayaa sadaqadii uu la bixi jiray imisaad iga qaadi jirteen markuu leeyahay oo ilaahay baad hor dhigan jirteen maxaad u xasuusan tahay ilaahay baad u hor subxaanahu wa tacaala ajar noocaa iska tahay inaan ilaahay barinaa la rabaa inuu ilaahay inoogu kaalmeeyo cibaado wanaagsan allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahu iigu kaalmee xusitaankaaga korkiisa mahadnaqaaga iyo cibaado wanaagsan inaan kuula imaado ilaahu iigu kaalmee taasaa la rabo walaalayaal inaan ku ducaysano haddaba shahru ramadaan waa shahru ducaa fursadda laga faa'iidaysto maanta 7 inoo tahay maalmuhuna sidaad idinkuba dareemaysaan xoog bay inagu dhaafayaan shalay u baahayd markaynu ramadaan soo dhaweynaynay markaynu lahayn ramadaan baa soo dhow markaynu ku ducaysanin ilaahu ramadaanna gaarsii ramadaan nagoo caafimaad qabno allahi na gaarsiiyey maantana waa 7 berri waa 8 aayar bay ku dhaafaysaa haddii 7kii hore ducadu ay ku dhaaftay waa inaad iminka ka faa'iidaysataa markaad afurayso ducayso markaad afurto ducayso inta aad maalinkii sooma tahay ducayso habeenkii suxuurta ducayso salaadaha kadib ducayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ducaa wax lagaga helaa وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي شرط أبوحنا وامحي إذا دعان هذا يبريوي مركا دعاء أين بدنه
qofku ha ku ducaysto in ilaahay qalbigiisa u wanaajo, cumrigiisa u barakeeyo, camalkiisa u wanaajo, caruurta uu hagaajiyo, wadanka ilaahay amni uu inoo geliyo. ha lagu ducaysto salaadaha in ilaahay naga aqbalo, sadaqaadka ilaahay naga aqbalo, ha lagu ducayso. waxaan ilaahay weydiisanaya subxaanahu wa tacaala oo magacdiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa saraan ku weydiisanaya jamaceennaas ilaahay inoo dambi dhaafo, ilaahay inoo dambi dhaafo, qalbigeenna allah inoo nuuriyo, camalka allah inoo wanaajo, cibaadada allah inoo fudeediyo, balaayooyinka allah inaga xijaabo, soomka allah inaga aqbalo, qur-aan akhrinta allah inaga aqbalo, sadaqada allah inaga aqbalo. ilaahay subxaanahu wa tacaala balada cirjirta ee dhul jirta allah inaga sabata bixiyo. ramadaantan habeen kasta kuwa loo dambi dhaafo allah inaga dhigo. jannooyinka ilaahay jannatulfirdowsa ugu sarreysee kuwa gala allah inaga dhigo. waxaynu nahay dad maslaxadooda aan iyagu garanayna ilaahay hayna tuso. ilaahay ma dooran karne allah inoo dooro, ma garan karne allah inoo garto. adduunkana wanaag baan ilaahay weydiisanayna, ifsan iyo adduunsan iyo aakhirasan intaba allah weydiisanayna. sakaraadka iyo su-aasha allah inoo fudeediyo. laa ilaaha ila allah kuway kaga baxda allah inaga dhigo. camalkeennana ilaahay ha inaga aqbalo. ramadaantu kuwii ay tababartay allah inaga dhigo. alla ka cabsiga ramadaanta laga rabo in laga helo kuwii hela allah inaga dhigo. dembigeenna oo dhanba allah dhaafo, ilaahayna ha iska jeclaysiiyo. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. hal malxuudo un baan akhyaarta u soo gudbinayaa. waxaa soo gudbinayaa malxuudo badanaa masaajidda marka muxaadaraad sidan oo kale ay ka jiraan ku dhacda akhyaarta qaarkood ama dadka qaarkood ku dhacda. waxay tiraa soomaalidu laabihee laba ulamay tiraahdaa. waxaana qofka muslimka markaa uu camal qabanayo laga rabaa inuu camalkaasi bilaa tashwiish ku qabtaa laga rabaa. ma tahay mise maaha? masaajidka hadday muxaadara ka jirto oo waxa loo qabtay masaajidka muxaadarada waxa loogu qabtay waa in dadka joogaa ay dhegaystaan. ma tahay mise maaha? haddaba ka waran haddii qofku uu kitaab intuu qaato uu iska akhristo, bal idinkaa laydin dhibee ka warrama. ya eeg qur-aanku wuxuu ku farayaa aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana, kuwa hadalka dhagaysanaya kiisa wanaagsan raacaya. qur-aanku wuxuu ku farayaa haddii muxaadaro ama kelmad ama hadalba ka jiro inaad dhagaysato. qur-aankaa ku faraya. qur-aankaan akhrisan muxaadarada dhinac baa ka dhagaysan, wax soconaya ma aha. laba mid baa kuu bannaan marka inaad kitaabkaaga intaad qaato gurigaagii iska tegto oo halkaad ku akhrisato, iyo in inta muxaadaradu socoto waa 40 daqiiqo ama waa 20 ama 30 aad dhagaysato. waxaa laga yaabaa hal kelmadood oo ku anfacda inaad ka maqasho muxaadarada. ma tahay mise maaha? markaa dhaqankaan iska ilaalino. dhaqankaa dadka qaarkood baa ku dhaqmaa, dadkao dhan ma aha. nin baa iska qaadanaya kitaab wuxuu leeyahay aada akhrisatid, waayo kow qur-aanku akhriyo horta tashiish baa ku socda, muxaadaradii baa iyaa ku socota. akhrinta qur-aankana waxaa la rabaa tadabbur iyo fiirfiirsasho, ma aha inaad dudubiso uun. ma tahay mise maaha? marka haddii qur-aankii aad tashwiish lagaa gelinayo kitaabka aad qaatad akhrisanaysaa muxuu kugu yaallaa? marka waxaa la rabaa qofka muslimka inuu caqli yeeshaa la rabaa. cibaadadan allah ina fahansiiyo. waxaan leenahay hadday muxaadara ka jirto masaajidka, kelmadii ay ka jirto, ha ku mashquulin kitaabaad qaadatee dhagayso. haddii kale intaad kitaabkaaga qaadato gurigaaga la tago halkaa ku khushuuc oo ku tadabbur oo kitaabkan hadalkan aad akhriyaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga hadalka waxay idiin dhexeeyaanay jirin. mustacidiin insha allah, mustacidiin. الله ينقاك بنا سبحان ربك.